الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحلقة labaad محاضرتي ahayd الانتصاف مما في منهج المداخلة من الاعتساف. waxaa inoo socday mulaaxadaadka iyo mu'aakhadaadka iyo qadaayaadka kala duwan ee lagu haysto walaalada salafiyiinta ah ee jadiidiyiintana la yidhahdo السلفية الجديدية. cinwaankana almadaakhila aynu ku magacownay. waxyaabaha lagu haysta waxaa ka mid a ama lagu yaqaano ashiddatu calaa aqrabi الnaas, ashiddatu calaa aqrabi الnaas, inay ku adag yihiin dadka dad ugu xiga xagga manhajka, caqiid ahaan ugu dhow, inay ugu adag yihiin oo waxay isticmaalaan qaacido ah dadka bidacdoodu waaweyn tahay sida shiicada, raafidada, ahlulirjaa, aljahmiya, almuctasila iyo kuwa la midka, kuwa xaaladoodu waxay odhanayaan waa muuqataayo waa daahir, lagu kadsoomi maayo, warkoodu waa cadi, bidcadoodu waa cadda, laakiin midiba kuu ka dhow yahay baa lagu kadsoomaya. marka kuwaasaa sutida loo qabanaya. sharciga iyo caqliguna cagsigu sheegaya. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. shisheeye inaad dulmido iyo xigto inaad dulmido keebaa weyn? waxaa sii weyn iyadoo labaduba dulmi tahay dad xigaala inaad waxa weeye bidcayso ama aada dulmido. qadiyaddaas caan bay ku yihiin. waxaana taa ku tusaya iska daa jamaacaadka ay ku foogan yihiin, iska daaya wadaadkii la joogay ee 10 sano la joogay iyo 20 sano bal u cimaamadnaaye shiikha u ahaa ayaa haddii ay wax ku qabsadaan ama ku qoonsadaan waxa weeye dagaalka ugu weyn baa lagu qaadaya. shalayna tusaalayaal waataynu soo maray cali alxalabi iyadoo rabiic almadkhali uu aad u ammaanay markay isku dhaceen muxuu yidhi إذا لم يكن مبتدعا فلا أعلم على وجه الأرض مبتدع. شر أهل البدع waxyaaba noocaas u isticmaala isaga iyo ragga la midkaa. shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala markuu ka hadlayey fii bayaani talbiis aljahmiya ashaacirada markuu ka hadlayey wuxuu uhi wain kana fii kalaamihim min aladilati الصaxiixa وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم. بيان